بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال وإذن سلام يا ميركستو أدونك كجوكتان maanta waa deeq darajo oo si live idin kala soo hadlaya magaalada Minneapolis gaar ahaan masjidka Karameel ee ku yaal magaalada Minneapolis waxaana idin hayaa hadii uu eebidmo 40 daqiiqo amba 30 daqiiqo kadib markii aan ka baxno casirka macallin xiito oo kamid ah macallin xisaabta ku wanaagsan oo si weyn lagu yaqaan magaalada Minneapolis oo waliba Soomaalida intooda badan ay si weyn u jeceshahay macallimiintu waxa si weyn u garanaya oo faahfaahin yar oo kooban idin ka siin doona hadii uu eebidmo macallin sidow ay saaxiib yihiin macallimiintu maanta wuxuu la wadaagayaa qisooyin muhiim ah sheekooyin muhiim ah waxyaabo isaga ku dhacay bulshada ayuu la hadlayaa community-ga la hadlayaa masaajidka Karameel ayuuna maanta ku casuuman yahay haatan waxaan ku wareejinayaa kaamirada macallin sidow oo isaguna kamid ah aqoon-yahanada magaalada macallimiinta magaalada waliba nin sheekh ah saaxiibkeena ah aad aan u jeclahay macallin sidow ku soo dhawow live ayaa lagu daawanayaa alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah assalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa awalan inuu ilaahay waddankeena inoo hagaajiyo ummaddeena ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay qalbigooda isu keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ay ku jiraan ilaahay uu ka saaro saas oo kale ummadda muslimiinta dhib badan baa haya iyagana insha allah subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummadda islaamkana guud ahaan ummadda muslimiinta in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diintooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo celiyo iyo dadnimadooda iyo wanaagii ay lahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibkana ilaahay uu ka qaado ama bacd إخوتي في الله أخ ولكن حيتو أنا وحان أقانا ويران يعني 20 سنة مالي كان انت أنا ودكسيدا قبل كان مينيابوليس معلن كاها يا انت جامعة منصة معلن كاها يا كوليجيدا معلن كاها انت أبو قرني حتى مركز سكوليدا معلن كاها سبيشالي سكول أورنجري هير جرون أكاديمي وحان سينجري إنه أرداد الصوماليات مركز ويرايين oo dad macnaha tutoring u sameeya ama aawiya iskuulka markay ka soo baxaan kadib oo dadkii laba dhibaato iska haysatay dhibaatadii luqadii ah iyo dhibaato oo xisaabtii iyo wixii ku saabsanaa science-ka marka aad iyo aad buu uga caawin jiray hayto yani meeshiisu intii meel laga aflaxay ahayd ilaahay waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadkiisa alla u soo celiyo asagii ama maanta insha allah diyaar ah oo ka hadli doonaa arrintaas insha allah واتهي داود يالنا لجوجا قصوين عجيب iyo barnaamijyo muhiim ah oo waxtar u ah bulshada ayaan maanta halkaan idin kaga soo jeedi doonaa hadii uu eebidmo waxaan idinka codsanayaa barnaamijkaasi markaan hawada soo galno inaad share gareysaan si walaalaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan ay u arkaan amba ay u dhageystaan sidaan hore idinkuugu sheegana macallin xiit naftirkiisa maanta inaan la kulmo farxad ayay ii tahay وكان معلنك وحاو اسغنا ku balansan yahay 40 amba 30 daqiiqo kadib in uu masaajidka ka hadlo isla markaana uu la wadaago xaaladiisa caafimaad meesha ay marayso khibrada uu leeyahay nanka waxbarashada macallimiinta ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baa mahadis kale ilaahay baa ku mahadinaya nicmadana siiyay ilaahay caafimaadkana siiyaan ku mahadinaya ilaahay baa ganooga birsiyaan ku mahadinaya iyo rasuulka Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan kaloo ku mahadinayaa dadkii barnaamijkan soo qabanqaabiyay waxaan kaloo ku mahadinayaa dadka magaaladan degan ee nagu soo dhaweeyay oo mahad celinaya iyaga dhamaantood iyagana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin la wadaaga noloshayda shalay maantay barnaamijka la yiraahdo waan jeclahay inta badan waxa bini'aadanka ilaahay uu dadkiisa u abuuray waxa waaye inay ku cibro qaataan ama ku waana qaataan marka waxaan rabaa inaan la wadaaga haduu la yiraahdo saacadaha walaalka ay sheegay kadib ana u mahad celinaya sardeeq waxaan idin rajeynayaa inta ka dambaysa saacadahaas haduu la yiraahdo inaan ahwaasheeda kaga warramo noloshayda kow sadaan ahaa iyo saa markaa Mareykanka imaanayay saan ku bilaabay nolosha iyo maanta marxaladda aan ku jira waxaan ku mahadinayaa mar kale ilaahaygi caafimaadkiina siiyay dhamaanteen oo aan u jeedna nicmadan amaanta ku dhex jirna laakiin aan dareemi karin
ana taaban karin qofka bani aadamkana wuxuu ogaadaa nicmada marka laga qaado ayuu ogaadaa faa'iidada uu haystaa marka haddaad tihiin dhegeystayaasha ama daawadayaasha waan kusoo dhaweynaa barnaamijkan dhammaantiin macalixito adigoo soo koobaya maadaama waqtigan aada noo haayo dadka inta badan adduunka daawanaya qaarkood soomaaliya joogaan qaarkood yurubka iyo afrikada ayay joogaan qaarkoodna carabta ayay joogaan barnaamijka aan ugu magac dartay shalay iyo maanta haddii aad faahfaahiso oo faahfaahin yar aad ka bixiso maxaad ku faahfaahin lahayd horta qofkii raba inuu daawado barnaamijka shalay maanta hadda ka hore qiso yar aan ka sameeyey waxay ku jirtaa youtube-ka haddaad ku qorteen xiito andan youtube aad ku qorteen shalay maanta idin soo bixisa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay cibro waxaa la yihahdaa markaad dunidan aad fiirisid rasuulkeen maxamed allah sal slam caleh rasuul ka dambeeya oo lasoo diraya haba yaraatee ma jirto waxay uu soo degayo dambe oo la sugayo ma jirto laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay dadkiisa inuu calaamadahaas oo kale uu dadka kuwaana qaataan waxaa laga yaabaa hadda iduu ilaahay maanta caafimaad ku siiyey oo tamaam lixdaa lixaad uu ku siiyey inaad ku cibro qaadatid ama berri aad iloobin inaad alla ku mahadisid sababtoo ah agtaada midka jooga waxaa laga yaabaa in caafimaadka adiga haysatid oo mid lamida uusa haysan marka barnaamijkaas shalay maanta waxa waaye cibro qaadasho waaye waa message waaye oo ilaahayna tusinaya in nicmada uu adiga ku siiyey inuu kaa qaadi karaa qof kalena uu siin karaa marka waxaan leeyahay mar kasta in ilaahay la xasuusta oo ilaahay lagu mahadiya inaan la iloobin waqtigiina saasaan ka wadaa ito aada ayuu u mahadsan yahay shalay iyo maanta barnaamijkaasi loogu magac daray maanta masjidka karameel si life ayaan idinkugu soo gudbi doonaa waana macalinka waxa uu ka sheekeynayo waa wax uu dhacay uu isagu uu og yahay oo weliba dadka uu rabo inuu u sheego oo ka wacdiyo isla markaana uu ogaado shalay markaad caafimaad qabtay oo xaaladaada amba caafimaadkaada 100% aad ahayd waxaa kugu filan in wax yar caafimaadkaada oo kamid a lagaa qaado marka nala socda 30 daqiiqo kadib live ayaa soo galaynaa macalixito wuxuu la hadlayaa 100 qof oo Soomaali ah oo masjidka karameel ku tixan isagana wuxuu la wadaagayaa khibradiisa experience-giisa bilow ilaa dhammaad noloshiisa siday ahayd marka waan filayaa in qof kasta oo Soomaali ah uu barnaamijkan uu ka faa'iidi doono waxaan idinka codsanayaa markaan live-ka aan soo galno in qof kasta oo walaal ama walaashin ah ama walaalkeen ah uu noo sii sheergareeyo si ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto macalixitana aad baan ugu mahadcelinayaa inuu maanta barnaamijkaasi uu la wadaago bulshada Soomaaliyeed marka waa saaxiibkiina walaalkiin deeq darajo oo idin leh waa inoo 30 minutes 30 daqiiqo kadib haddii uu eebbe idmo dadka hadda masaajidka karameel agaarkiisa jooga oo meelahan ka dhow waa ka soo gaartaan saada casirka imaada ka faa'iideysta hadduu ilaa yidhaahdo intii ladinkaga sheekay lahaa si live ah uu imaada macalinka u arka su-aalo weydiiya la kulma marka ugu dambeyntii wax badan ma oran karo laakiin waxaan leeyahay hal wax leh xasuusta alla yaa leeloobin 24 saac aad ku dhaafta maalin kasta 20 daqiiqo kadib haddaad salaada aad dugatid 23 daqiiqo iyo 23 saac iyo 40 daqiiqo haddaad ilaahay xusin ood xasuusan ogow waxaad tahay qof ay wax ka khaldan yihiin midda kale waxaan kula dardaarmayaa adduunkan intaa joogteen cilmiga ha lagu dadaalo ilaahay qur-aankiisa ku sheegay cilmiga in la bartaa cilmiga lama kala saarin cilmiga mid adduunya ma jiro kulli cilmi waaye cilmiga waa in la bartaa oo lagu dadaalaa siiba ubadkeena dambe ay soo socdo hadduu ilaahay nafta noo daaya waa inaan ku dadaalnaa sidaan uga dhigi lahayn dad cilmi leh oo kaadiriin aqoon fiican leh inay ahaadaan marka dardaarankeena waxa waaye intaan duniyada ku noolnahay waxna barta allana hala caabudo oo la xasuusto waxaan markaan ku wareejinayaa walaalkay Rooble oo isaguna kamid ah jamaacada masaajidka isla markaana ah nin macruuf ah saaxiibkeena ah Rooble maxaa ka dhahelad barnaamijka maanta billahi min ash-shaytaan ar-rajiim bismillah wa salaatu wassalaam ala rasuulillah marka ugu horeeya waxaan u mahad celinayaa Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala naga dhigay muslimiin adoomadiisii ummadii nabi maxamed waliba noo sii doortay ayaan u mahad celinayaa ilaahna siiya caafimaadka iyo wax kasta na siiyay ayaan mahadaale ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo walaalkeen inoo sheegay maanta insha Allah halkan ila fadhiyo walaalkeen xafidahu Allah insha Allah macna hayto halkan nala fadhiyo insha Allah uu galabta ka hadli doona haddii Allah wadala raali ka noqdo before and after noloshiisii hore iyo noloshan dambe
iyo cilmi maxaa uga biiray insha allah biidnillah. marka ani maanta waxay ila tahay inayn maanta cilmi iyo cibrad aanu ku qaadanayno walaalkeen ayuu ilaahay maanta noogu talagalay subxaanahu wa tacaala. soo marka waxaan dadka kula dardaarmi lahaa siduu walaalkeena kula dardaarmay, adduunkan waa short time, waa laga tegayaa 60 63 70 80 sano in la noolaan karo, wallahu yaclam intuu ilaahay kuugu qoray. muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan allah alcaza wajal subxaanahu wa tacaala inay la caabudo. see loo caabudaa? shantiisa waqti inay loo tukado, kitaabkiisa la akhriyo, dikrigiisa afka lagu hayo, diintiisa la xafido, addoommada ilaahay. lacag waa la arkay, caafimaad waa la helaa, wax kasta waa la helaa, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa iyo caafimaadkuu ku siiyey inaan u mahad celino ayaan ilaahay nooga baryaa subxaanahu wa tacaala. walaalka xiitana waxaan ilaah uga baryaa subxaanahu wa tacaala iyo isagii intuu ummadda nebi maxamed iyo dhammaanteenba ilaahay inuu caafimaad iyo cimrana siiyo, ilaahay inuu naga dhigo kuwii uu raalli ka noqdo maalinta qiyaame, uu yidhaahdo addoommadayda soo gala jannadayda, ay malaa'igtuna nagu soo dhaweyso. ilaahayna waxaan ka barya ilahay inuu cadaabda qabriga naga badbaadiyo iyo fidnada adduunkan iyo cadaabta akhiraan ilaahay ka barya. ilaahayna waxaanu inooga baryaa dhammaanteen intuu ummadda nebi maxamed muslimiin meel kastay joogaan kuwii ilaahay raalli ka noqdo allaha naga dhigo, kuwii malaa'igtiisu jannad firdows alacla kusoo dhaweysa allaha naga dhigo, khaatimo saalixa oo wanaagsan uu ilaahay raalli ka yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan inooga barya ilaahay inuu dhammaanteen inagu wada qaado, nafteenna kaga qaado, inakoo u sujuudsan, inakoo kitaab akhriyayna, ilaahay waxdinimadiisa qirayna iyo rasuulkiisii maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, isagoo ilaahay raalli inaga dhammaanteen ayaan ilaahay inooga barya. wixii dembi inaga dhacay hore iyo yaraa iyo weynba iyo kuwa nagu soo socdaba ilaahay haynooga wada dembi dhaafo. wixii qof kastoo muslim oo dhib haystana ilaahay dhibtaa ka qaadan ilaahay inooga barya dhammaanteen iyo intuu ummadda nebi maxamed muslimiin. kuwa gaajaysanna ilaahay inuu gaajada ka qaado, kuwii dhibaataysana iyo jiradaba inuu ilaahay ka qaadan ilaahay inooga barya subxaanahu wa tacaala. ilaahayna haynagu dila dhammaanteen kelimadda xaqa oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayaan dhammaanteen leeyahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو ماسين هاي معلكم سلامية. صاحبي الله سلامينا صلاة نقص فضله وحنوب لنا بعد العصر يو دقيقة ده سيجورية عشان 20 دقيقة إلا 20 دقيقة أنت لقد يرجروبيو وحنوب لنا إنه هالكنا اللايف أكو كلنا وحندين هنا برنامج أما اللغة مقدري شلي يمانتا معناه هو برنامج كعبد القاشب بدن وقصة دبقة oo dhacday oo macallin xiito sida markiisa noogu sheekay doono. waxaana filayaa inaad barnaamijkaasi aad ka faa'iideysan doontaan sida ballantu ahayd. markii aan hawada soo galno masaajidka ayaan ku jirnaa xilligaasi, sidan hadda u sheekeynayno fursadaas badan ma heli karno, laakiin waxaan idinka codsanayaa in qof kasta oo barnaamijkaas daawanaya uu sheer gareeyo. isla markaana macallin xiito si gaar ah ayaa wareysi aan kaga qaadan doonaa haddii uu ilaahay yidhaahdo telefishinka universal. isagana waxa uu diyaar u yahay sida uu sheegay in uu ka qayb qaato barnaamijyada muhiimka u ah bulshada. marka waa saaxiibkiin deeq darajoodin leh maca salaamo. waan ka xumahay annagu hawadaan isku aragnay inaan idinka tago, laakiin waa idinku soo noqon doonaa haddii uu aabeedmo. waana ku mahadsantihiin daawashadiina. kaasi loogu magac daray maanta masjid karameel si live ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. waana macalinka waxa uu ka sheekeynayo waa wax uu dhacay oo isagu uu og yahay oo weliba dadka uu rabo inuu u sheego oo ka wacdiyo isla markaana uu ogaado. shalay markaad caafimaad qabtay oo xaaladaada amba caafimaadkaada 100% aad ahayd, waxaa kugu filan in wax yar caafimaadkaada oo kamid ah laga qaado. marka nala socda 30 daqiiqo kadib live ayaa soo galaynaa. macallimiinta wuxuu la hadlayaa 100 qof oo Soomaali ah oo masjid karameel ku tixan. isagana wuxuu la wadaagayaa khibradiisa, experience-giisa bilow ilaa dhammaad noloshiisa siday ahayd. marka waan filayaa in qof kasta oo Soomaali ah uu barnaamijkan uu ka faa'iidi doono. waxaan idinka codsanayaa markaan live-ka aan soo galno in qof kasta oo walaal ama walaashin ah ama walaalkeen ah uu noo sii sheergareeyo si ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto. macallimiintana aad baan ugu mahad celinayaa inuu maanta barnaamijkaasi uu la wadaago bulshada Soomaaliyeed. marka waa saaxiibkiina walaalkiin deeq darajo oo idin leh waa inoo 30 minutes 30 daqiiqo kadib haddii uu eebbe idmo. dadka hadda masaajid karameel agaarkiisa jooga oo meelahan ka dhow
waa kasoo gaartaan saada casirka imaada ka faa'iidaysta hadduu ilaa yidhahdo intii laydinkaga sheekay lahaa si life ah u imaada macalinka u arka su-aalo weydiiya la kulma marka ugu dambeynta wax badan ma oran karo laakiin waxaan leeyahay hal wax leh xasuusta alla yaa leeloobin 24 saac aad ku dhaafta maalin kasta 20 daqiiqo kadib haddaad salaada aad dugatid 23 daqiiqo iyo 23 saac iyo 40 daqiiqo haddaad ilaahay xusin ood xasuusan ogow waxaad tahay qof ay wax ka khaldan yihiin midda kale waxaan kula dardaarmayaa adduunkan intaad joogtiin cilmiga lagu dadaalo ilaahay qur-aankiisa ku sheegay cilmiga in la bartaa cilmiga lama kala saarin cilmiga mid adduunya ma jiro kulli cilmi waaye cilmiga waa in la bartaa oo lagu dadaalaa siiba ubadkeena dambe ay soo socdo hadduu ilaahay nafta noo daaya waa inaan ku dadaalnaa sidaan يعني 20 سنة maalinkan intaan anigu dugsiyada gobolkan Minneapolis macalinka ka ahaa iyo intaan jaamacad Minnesota macalinka ahaa iyo in collegeada macalinka intaaba waan garanay hatta markaan iskuulyada aan macalinka ahaa especially school la oran jiray Hare Garoon Academy waxaan siin jiray inuu ardada Soomaaliyeed markaas way yaraayeen oo dad macnaha tutoring u sameeya ama caawiya iskuulka markay ka soo baxaan kadib waayo dadkii laba dhibaato iska haysatay dhibaatadii luqadii ah iyo dhibaato oo xisaabtii iyo wixii ku saabsanaa science-ka ah marka aad iyo aad buu uga caawin jiray hayto yani meeshiisu runtii meel laga aflaxay ahayd ilaahay waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadkiisa alla u soo celiyo te asagii aba maanta insha allah diyaar ah oo ka hadli doonaa arrintaas insha allah waa tahay daawadayaal nala jooga qisooyin cajiib ah iyo barnaamijyo muhiim ah oo waxtar u ah bulshada ayaan maanta halkaan idinkaga soo jeedi doonaa haddii u eebidmo waxaan idinka codsanayaa barnaamijkaasi markaan hawada soo galno inaad sheergareysaan si walaalaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan ay u arkaan amba ay u dhageystaan sidaan hore idinkuugu sheegana macalin xiita naftarkiisa maanta inaan la kulmo farxad ayay ii tahay waa kana macalinka waxa uu isagana ku balansan yahay 40 amba 30 daqiiqo kadib in uu masaajidka ka hadlo isla markaana uu la wadaago xaaladiisa caafimaad meesha ay marayso khibradda u leeyahay dhanka waxbarashada macalin xiita kusoo dhawow bismillahi raxmaan raxiim horta hore ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baa ku mahadinaya nicmadana siiyey ilaahay caafimaadkana siyaan ku mahadinaya ilaahay baa ganooga birsiyaan ku mahadinaya iyo rasuulkayga maxamed allah sal salam caleyh waxaan kaloo ku mahadinayaa dadkii barnaamijkan soo qabanqaabiyey waxaan kaloo ku mahadinayaa dadka magaaladan degan ee nagu soo dhaweeyey oo u mahad celinaya iyaga dhammaantood iyagana waxaan aada ugu faraxsanahay inaan idinla wadaaga noloshayda shalay maantay barnaamijka la yiraahda waan jeclahay inta badan waxa bini aadanka ilaahay uu dadkiisa u abuuray waxa waaye inay ku cibro qaataan ama ku waana qaataan marka waxaan rabaa inaan idinla wadaaga hadduu ala yidhahda saacadaha walaalka ay sheegay kadib anoo u mahad celinaya Mr. Deeq waxaan idin rajeynayaa inta ka dambeysa saacadahaas hadduu ala yidhahda inaan axwaashayda kaga warramo noloshayda kow saadaan ahaa iyo saa markaa maraykanka imaanayay saan ku bilaabay nolosha iyo maanta marxaladaan ku jira waxaana ku mahadinayaa mar kale ilaahigii caafimaadkiina siiyey dhammaanteen oo aan u jeedna nicmadan ammaanta ku dhex jirna laakiin aan dareemi karin aana taaban karin qofka bani aadankana wuxuu ogaadaa nicmada marka laga qaada ayuu ogaadaa faa'iidada uu haystaa marka haddaad tihiin dhegeystayaasha ama daawadayaasha waan kusoo dhaweynaa barnaamijkan dhammaantiin macalin adigoo soo koobaya maadaama waqtigan aada noo haayo dadka inta badan adduunka daawanaya qaarkood Soomaaliya joogaan qaarkood Yurubka iyo Afrikada ayay joogaan qaarkoodna Carabta ayay joogaan barnaamijkan ugu magac dartay shalay iyo maanta haddii aad faahfaahiso oo faahfaahin yar aad ka bixiso maxaad ku faahfaahin lahayd horta qofkii raba inuu daawado barnaamijka shalay maanta hadda ka hor qisa yar aan ka sameeyey waxay ku jirtaa YouTube-ka haddaad ku qorteen xiito andan YouTube aad ku qorteen shalay maanta idin soo bixisa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay cibro waxaa la yidhahdaa marka dunidan aad fiirisid rasuulkeen maxamed allah sal slam caleyh rasuul ka dambeeya oo lasoo diraya haba yaraatee ma jirto waxay uu soo degayo dambe oo la sugayo ma jirto laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay dadkiisa inuu calaamadahaas oo kale oo dadka kuwaana qaataan waxaa laga yaabaa hadda iduu ilaahay maanta caafimaad ku siiyey oo tamaam 6 uu ku siiyey inaad ku cibro qaadatid ama berri aad iloobin inaad alla ku mahadisid sababtoo ah agtaada midka jooga waxaa laga yaabaa in caafimaadka adiga haysatid
oo mid lamida uu sahiisan marka barnaamijkaas shalay maanta waxa waaye cibro qaadasho waaye waa message waaye oo ilaahayna tusinaya in nicmada uu adigu ku siiyey inuu kaa qaadi karaa qof kalena uu siin karaa marka waxaan leeyahay mar kasta in ilaahay la xasuusta oo ilaahay lagu mahadiya inaan la iloobin waqtigiina saasaan ka wadaa ito aad ayuu u mahadsan yahay shalay iyo maanta barnaamijka dhigi lahayn dad cilmi leh oo kaadiriin aqoon fiican leh inay ahaadaan marka dardaarankeena waxa waaye intaan duniyada ku noolnahay waxna barta allana la caabudo oo la xasuusto waxaan markaan ku wareejinayaa walaalkay Rooble oo isaguna ka mid ah jamaacada masaajidka isla markaana ah nin macruuf ah saaxiibkeena ah Rooble maxaa ka dhihi lahayd barnaamijka maanta بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مركو غوريا وحانو مهد علينا الله عز وجل سبحانه وتعالى نقدر مسلمين الدومديسي أمدي النبي محمد ولي بالنوصي دورتي أيام مهد علينا إله النسي عافماتك وحكست النسي أيام مهد دالي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود ولكن نوشي مانت إن شاء الله هل كانوا يلفدي ولكن حفظه الله إن شاء الله مع نحيته هل كان لفدي إن شاء الله وقلبت كهذا لدونه هدي الله ودل رالي كان نقضو before and after نولشي سيهوري ينولشان دنبه iyo cilmi maxaa uga biiray insha Allah biizna marka ani maanta waxay ila tahay inay maanta cilmi iyo cibrad aanu ku qaadanayno walaalkeen ayuu ilaahay maanta noogu talagalay subxaanahu wa tacaala soo marka waxaan dadka kula dardaarmi lahaa sidoo walaalkeena kula dardaarmay adduunkan waa short time waa laga tagayaa 60 70 sano in la noolaan karo wallahu yaclam intuu ilaahay kuugu qoray muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala in la caabudo si loo caabudo shantiisa waqti in loo tukado kitaabkiisa la akhriyo dhikrigiisa afka lagu hayo diintiisa la xafido adoomada ilaahay lacag waa la arkay caafimaad waa la helaa wax kasta waa la helaa laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala raxmadiisa iyo caafimaadku ku siiyay inaan u mahad celino ayaan ilaahay nooga baryaa subhanahu wa ta'ala walaalka xiitan waxaan ilaahay uga baryaa subhanahu wa ta'ala isagii intuu madinay maxamed iyo dhamaanteynba ilaahay inuu caafimaad iyo cimrana siiyo ilaahay inuu naga dhigo kuwii uu raalli ka noqdo maalinta qiyaame uu yiraahdo adoomadayda soo gala jannadayda ay malaa'igtuna nagu soo dhaweyso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال وإذن سلام يا مركزو أدونك كجوكتان maanta waa deeq darajo oo si live idin kala soo hadlaya magaalada Minneapolis gaar ahaan masjidka Karamel ee ku yaal magaalada Minneapolis waxaana idin hayaa hadii uu eebidmo 40 daqiiqo amba 30 daqiiqo kadib markii aan ka baxno casirka macallin xiito oo kamid ah macallin xisaabta ku wanaagsan oo si weyn lagu yaqaan magaalada Minneapolis oo waliba Soomaalida intooda badan ay si weyn u jeceshahay macallimiintu waxa si weyn u garanaya oo faahfaahin yar oo kooban idinka siin doona hadii uu eebidmo macallin sido ay saaxiibo yihiin macallimiintu maanta wuxuu la wadaagayaa qisooyin muhiim ah sheekooyin muhiim ah waxyaabo isaga ku dhacay bulshada ayuu la hadlayaa community-ga la hadlayaa masaajidka Karamel ayuuna maanta ku casuuman yahay haatan waxaan ku wareejinayaa kaamirada macallin sido oo isaguna kamid ah aqoon-yahanada magaalada macallimiinta magaalada waliba nin sheekh ah saaxiibkeena ah aad aan u jeclahay macallin sido ku soo dhawow live ayaa lagu daawanayaa alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah assalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynayaa awalan inuu ilaahay waddankeena inoo hagaajiyo ummaddeena ilaahay subxaana wa tacaala inuu ilaahay qalbigooda isu keeno ilaahay subxaana wa tacaala dhibka ay ku jiraan ilaahay uu ka saaro saas oo kale ummadda muslimiinta dhib badan baa haya iyagana insha allah subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummadda islaamkana guud ahaan ummadda muslimiinta in ilaahay subxaana wa tacaala uu diintooda ilaahay subxaana wa tacaala uu soo celiyo iyo dadnimadooda iyo wanaaggii ay lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala dhibkana ilaahay uu ka qaado ama bacd ikhwati fillah akh walaalkay xiito anu waxaan aqaanaa ugu yaraan